soomaalida ogaadeenaya iyo dhammaan ummadda muslimiinta waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu maalintan fiican ee wanaagsan ee khayrka qaba dembiga iyaga ilaahay inuu dhaafo annaga ummadda reer soomaalida ogaadeenaya dhammaan muslimiinta inuu ilaahay dembigooda dhaafo ayaan ilaahay ka baryaynaa kuwa la xoreynaya ee naarta laga xoreynayana maanta laga xoreynayna ilaahay inuu naga mid dhigaanu ka ilaahay ayba ka codsanaynaa munaasabadan fiican waxaan ka baryaynaa ilaahay in uu shacbiga soomaalida ogaadeenaya gumaysiga Itoobiya ee xun ilaahay inuu ka dulqaado ayaan ilaahay ka baryaynaa shacbiga soomaalida ogaadeenaya muddo dheer buu gumaysi ku soo jiray dhibaatooyin fara badan buu la soo kulmay dil dhac xadhig faraxumayn xadgudub diintoodii iyo dhaqankoodii lagu xadgudbo wax bani aadamka xumeeyo oo dhan baa dadkaa lagula kacay haddana waxay maraysaa markii waxaas oo dhan lasoo dhaafay in gumaysiga Itoobiya uu bilaabay in uu raggii ogaadeenaya xubinka taranka inuu ka gooyo xubinka taranka inuu toos uga gooyo ayuu gumaysigii bilaabay waana ifafaala cusub oo lagu dayahayo in dadka sidii ay u hogaansanaadaan oo u aqbalaan gumaysiga hogaankiisa ay u aqbalaan waa falalku ku kici jiray fal kamid ah shacbiga reer ogaadeenaya shacbiga soomaalida ogaadeenaya waxaan ku baraarujinayaa dhaqanka gumaysigu ma aha inuu marnaba himiladaadii si nabadgelyo ama si fiican marra inuu kugu siiyo ma aha hadba tallaabada ka xun buu kugula kacahayaa shacbiga reer ogaadeenaya waa inuu iska celiyo gumaysiga waa in uu ka dhiiniyo dhibaatadaas wax uu ka cabsanayo oo lagu samayn lahaa oo aan lagu samaynin ma jiro wax kasta nooc kasta uu yahay wax bani aadam lagu samayn lahaa oo shacbiga ogaadeenaya lagu samaynin ma jiro marka shacbigu wuxuu ka cabsanayo ma la garanayo shacbigu waxa weeye marka inuu gadoodo uu istaago oo uu gumaysiga iska celiyo oo uu gobonnimadiisa iyo himiladu uu halgamayo uu raadsado ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay midaan nagu guuleeyo midnimo iyo iskaashi yani la cuskado oo la kaashado ilaahay taasaan ka baryaynaa maanta maalinteedana ilaahay shacbiga Soomaaliya ogaadeenaya oo xor ilaahay inuu ila gaarsiiyo mar labaad waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaantiin ciid mubaarak shacbiga Soomaaliya ogaadeenaya shacbiga ummadaha Soomaaliya dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak maalinteedana mid khayr qaba Allah inooga dhigo ilaahay nabad ha inuu gaarsiiyo salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh